على الحمر halka ay ka baran lahaayeen diin aqoon iyo ilbaxnimo dibka ceelaf weyn kuma koobna intaas waxa uu barbadow oo ku taala ku noqotay dhammaan qaranka Soomaaliland iyo sumcaddii nabadgelyada ahayd ee Soomaaliland ku soo Soomaaliland gudaheeda sheekh iyo shariif uma kala hadhin wax ka qabashada colaadda degmada ceelaf weyn علماء صلاحين مدح دقمات حكومة أحساب كان سطوية وحقرب أن قوت التجيني ولا قلت تجيني متشيرو دلال وقتي إذا حوالي بدن باكو بحي سيدي النبضة واحد لها سيدو كلا وحقرب كاية وإيل كبديلها هذا كود ريريا وضع الشيء أرضي دلال كما هرين وعصوصي نوغو فلان heshiiskii ugu muslaa ee bishii August 2018 ay dhexdhexaadinta hogaaminayeen culimada Soomaaliland oo ay kamid ahaayeen Sheekh Abdullaahi Sheekh Ali Jawhar Sheekh Maxamed Umar Dirir iyo dhammaan culimadii ugu magaca weyneyd Soomaaliland oo afayada ka ahaa Sheekh Ismaaciil Deek walaalayaal diinteena islaamka nabadda meel koraysa oo sare bay dhigtay iimaanka qofka muslimka ah waxay ka horeysiisay nabadgelyada waana tii ducadii rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ahayd allahumma inna nas'aluka al-amna wal iimaan wa macnaheedu yahay in iimaanka laga horeysiiyey iimaanka sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa in beelaha walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka fadhiga ay ka waantoobaan colaadda soo jiitantay kuna sareeyaan inay nabadda xidhaan heshiisyadii kala dambeeyey ee laga gaadhay colaadda ceelaf weyn oo ugu dambeeyey shirkii sabatalis ee dhowaan burco lagu soo gebagabeeyey madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland maanta loogama baahna baaq nabadeed waa inay heegan buuxa geliso ciidamada qaranka si loo soo qabqabto fidnawadayaasha dhiigga maalin walba daadinaya ee ka mas'uulka ah si loo hor keeno garsoorka iyo cadaaladda dhinacay doonaanba ha ka tirsanaadeen ugu dambayn waxaa ku soo gunaanadaya hadalkayga maanta weeg murtiya oo ka mid ah gabayadii hadraawi sow nabadiisa haydaada oo sidata uun maaha sow gudobi surinka martaba سبب غشون معها عبد العيد مول اسماعيل الشبكة